waxaa warka idiin soo tabinaya anigoo ah rugcadda qarannimo doon. Shirkii golaha federeeshinka ee la wada sugayay wuxuu ku soo dhammaaday doorashada Tigreegu waa sharci darro, mana aqoonsan doono natiijada ka soo baxday. Qoraal lagu daawacay wargeyska afka xisbiga Tigreega ku hadlo weyn ayaa deegaanka Tigreega ku tilmaamay inuu yahay daloo kale. Hadda iyada oo wargeyska qoraalka uu daawacay lagu duulayo ayaa waxaa dalka Itoobiya si weyn looga hadalhayaa deegaanka Tigreega inuu doonayo inuu ka go'o dalka Itoobiya. Xisbiyada mucaaradka ee Amxaarada qaar ka mid ah oo warbaahinta ku hadlaya hadda ayaa go'aankii golaha federeeshinka ku tilmaamay mid aan la qaadan karin. Kuwa kale ayaa ku doodaya in doorashada Tigreegu halis ku tahay dhulka ay isku hayaan Amxaarada, waxayna ku doodayaan inay albaabka u furayso gooni isku taaga Tigreega. Marar badan ayaa idinla wadaagnay inaan doorashada Tigreega la joojin karin. Sidoo kale waxaa inta badan idin soo gudbin jirnay caqabadaha horyaalla iyo weliba inaan awood loo adeegsan karin dowladda Itoobiya oo sidaa awgeed ay guusha ku raaci karto gobolka Tigreega. Abiy Ahmed Cali wuxuu dhex muquurinayaa mowjado culus. Haddii doorashada qabsoonto, Amxaaradu ku qanci mayso. Sidoo kale doorashada Tigreega oo qabsoonto, caqabado badan ayaa xukuumadda Abiy Ahmed Cali u soo jiidi doonta. Hadda wax walba waa ay cad yihiin siday Tigreegu rabeen, lagana yaabaa inay suurtagal tahay inuu Tigreega doorashadana qabsado haddii laga hor yimaado gooni isku taag inuu ku dhawaaqo, isla markaana ay ayaga u arkaan inay dan u tahay shicibka Tigreega. Muwaadiniinta dalka Itoobiya sidee u arki karaan inay maanta Tigreega ka go'do Itoobiya? Misana si gaar ah shir u qabsato Tigreeg, misana si gaar doorasho qof iyo cod ay ugu qabsoomi karto. Waxaad warkan kala socoteen Hormar TV qarannimo doon. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.